السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال maanta waxaan idin soo gudbinaynaa hordhaca kitaab taxana oo aan bilaabi doono oo la yiraahdo magaciisa ninkii surwaalka casaa. marka laga hadlayo koonka wuxuu tusayaa abuuritaanka quruxda badan ee nidaamsani inuu jiro cid samayskiisa iyo hal-abuurkiisa lahayd oo aanu ahayn wax iska samaysmay. sidaa darteed mabaadi'da uu yaqaano caqliga yar ee bani'aadamka ku jira wuxuu garan karaa in koonku caddeyn u yahay inuu jiro ilaah abuuray oo wax walba oo koonka ka dhacaya og awoodna u leh maamulkiisa iyo wax ka beddeladiisa. wax kasta oo ka dhex dhacayana qadarkiisa iyo amarkiisa ayay ku dhacayaan. haddaynu qirnay inuu jiro cid koonkan abuurtay cidaasi waa inay noqotaa cid ka baxsan adduunka isagana aanay cid abuurin. waayo haddaynu nidhaahno isagana waa la abuuray macnaheedu waa in cidda abuurtay ay isaguna u sii baahan yahay cid abuurtay marka way adkaanaysaa oo weligeed lama gaadhayo in la garto ciddii ugu horreysay ee wax abuurtay. haddii ilaaha weyn ee xikmadda badan ee koonka intaa lag abuuray inoo soo diray risaalad ama waxyi waa inay risaaladda ama waxyagaasi ahaadaan qaar iswaafaqaya waan isku hor imanayn. marka halka waxay nooga soo baxaysaa in diimaha faraha badan ee dadku sheegtaan kaliya mid quraat ay tahay diinta saxda ah. waxa kaloo dhan ay yihiin waxyaabo baadil oo bilaadanku ay dejisteen. diimaha hadda inoo muuqda haddaynu u fiirsano waxaynu arkaynaa inay u qaybsan yihiin laba qaybood oo kala ah. diimaha qaar dadka ugu baaqaya ilaaha koonka abuuray ilaahaas oo ay aaminsan yihiin inaan isaga la abuurin sidoo kalena ka baxsan koonka aynu naqaano. iyo diimo dadka ugu baaqaya inay caabudaan waxyaabo iyaga laftooda la abuuray oo isla koonka ballaaran ka tirsan sida sanamyada oo ah dhagaxyo la qoray xayawaanaadka iyo basharka qaarkood waana diimo ay dadku samaysteen. markaad halka marayso caqliga wanaagsan waxa uu garanayaa inaanay sax ahayn in la caabudo waxyaabo iyaga la abuuray qaarkoodna dadku qacmahooda ay ku samaysteen sida bilaadan kula mid ah ama xayawaan ka hooseeya oo dhimanaya wixii aan noolayn sida dhagaxaanta iyo sanamyadana hadalkooda badaa. sidaa darteed waxaynu ugu horreyn daaqada ka saaraynaa diimaha dadku dejisteen. kadib waxay noo soo hadhay 4 diimood oo kala ah yuhuudiyadda, kiristaannimada, saaradashtiyada iyo islaamnimada. haddaynu u nimaadno yuhuudinimadu waa diin qowmiyadeed oo haddii aanay hooyada ama aabbaha midkood aanu yuhuudi ahayn ma geli kartid. sidaa darteed caqligal ma noqon karto inay noqoto diinta saxda ah ee dadkoo dhammi qaadan karaan. kiristaannimadana haddaynu u nimaadno iyada waxaabuu khalkhal ku jira asalka caqiidada ay ku dhisan tahay oo waxay dadka leedahay waa inaad wada caabuddaa aabbaha inanka iyo ruuxda muqadaska ah iyagoo ka dhigaya inuu ciise yahay inankii ilaahay oo ay iska dhaleen ilaahay iyo hooyadii maryama. subxaanallah, ilaahay ayaa ka nasahan xumaan oo dhan iyo been abuurka ay dadku samaysanayaan. mana dhici karto abuuritaanka la yaabka leh inay 3 ilaah wada sameeyeen oo khilaaf iyo iska hor imaansho ayaa lagu arki lahaa. waxayna sheegayaan in ciisaha ay ilaahay ku sheegayaan la daldalay oo waa qaabku uu macatabku samaysan yahay. bal haddaba caqligal ma tahay in ilaah daciif ah oo waxba qaban karayn la daldalay oo aan noolayn oo dhintay koonka ballaadhan ee intaa lagu abuuro? ma jirto cid odhan karta ilaah dhintay ayaa abuuray dunida. waa la yaab. halkaas ayay masiixiyadda ama kiristaannimaduna ku hadhay. kaliya waxay noo hadhay 2 diimood oo kala ah islaamka iyo saaradashtiyada oo aynu kaga hadli doono muuqaalo dambe. diinta loo yaqaano saaradashtiyada waxa uu islaamku kaga sarreeyaa diintan kale arrimo fara badan oo ay ka mid tahay 1 inay islaamnimadu tahay risaalad caalami ah oo dadkoo dhan loo soo diray carab, cajam, eeshiyaan, cid kasta oo adduunka ku nool. 2 in rasuulka islaamka lagu yaqaano qofnimadiisa mid run sheeg badan sidoo kalena aaminaad leh halka rasuulka saaradashtiyada aan wax wari ka hadhin. 3 in nusuusta islaamka ee karaamaysan ilaashan tahay waxna aan laga bedelin xataa xarakaadka nusuustaas ay sideedii u taagan tahay waana shay aanay bilaadanku ilaalin karin muddo ka badan 1400 sannadood haddii aanu ilaaha wax walba abuuray u qadarin inay sidaas u ilaashanaato. 4 muuqaalka uu u dhigay islaamku khaaliqa adduunka inuu yahay mid xidhiidhsan oo cad cidna aanay muran ka keeni karin caqliga saliimka ah ee aan wax dabada ka riixaya ama isadkeeni ku jirina uu qaadan karayo. 5 in kitaabka islaamka ee quraanka oo ah hadalka ilaahay aanay ku jirin wax iska horimaad iyo khalad ah. haddii aynu fahanno faham dad qaba oo haddii uu yahay waxay dad sameeyeen waxa laga soo heli lahaa khaladaad iyo iska horimaad sida mar walba arrimaha bilaadanka ku dhacda oo kale. 6 islaamku waa diinta kaliya ee inoo fasirta falsafada koonka iyo dhacdooyinka ka dhaca fahan caqli kasta uu aqbali karo sidoo kalena hab fudud oo waadix ah uu fahmi karo maan kasta oo bad qaba.
ugu dambeyn waxaa jira hal ilaah oo kaliya wax la mid ahina aanay jirin waa inaynu kaliya caabudnaa cid kalena aynaan la wadaajin cibaadadiisa wuxuu ilaahay inoo soo diray bashar inala mid ah oo ina soo gaadhsiiyey fariinta xaggiisa ka timi waanu u soo waxyoodaa si ay inaga inoo baraan qaabka aynu ugu cibaadaysan karno oo ay inoogu caddeeyaan in awaamirtiisa basharka oo dhani ay awoodi karaan oo ay samayn karaan noloshu waa imtixaan waxaa jiri kara xanuun wanaag xumaan iyo geeri waxaynu u joognaa dunida korkeeda si aynu ilaahay u adeecno oo u caabudno amaradiisana aynu u qaadanno kadib ayaa layna xisaabin doonaa intani waa furfurid kooban oo caqligal ah oo aynu kaga jawaabnay su'aalaha jiritaanka dunida iyo kownka oo ah su'aalo qofka aan yaqiinta lahayn ku ridi kara shaki iyo yabaal sidaa darteed islaamku waa diinta saxda ah ee caqliga waafaqaysa xigasho maqaalkani waa nuqul ka mid ah kitaabka loo yaqaano ninka surwaalka cas ee uu qoray sheekh cabdiraxmaan gariin oo ah qoraa sidoo kalena sheekh weyn oo dacwadda diinta islaamka ah dadka ugu yeedha asal ahaantiisuna wuxuu ahaa British haystay diinta kiristaanka oo waliba ka sii ahaa madhabka kaatoliga waxa soo saaray buugga markiska dalaa'il ee diraasaadka islaamka oo ku yaala Riyaad caasimadda dalka Sacuudi Carabiya intani waxay hordhac u tahay buugga loo yaqaano الرجل ذو السروال الأحمر oo ah buug Carabi oo aan isu turjumi doono buuggan inooga jawaabi doono su'aalo badan oo la xiriira caqiidada qofka muslimka ah sidoo kalena aad ku qancin karto qof aan diinta islaamka waxba ka aqoon inuu soo islaamo ama kugula doodaya inay diintaadu tahay diin khaldan qaabka aad ugu qancin lahayd